Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Somali Islamic TV waxay idiin wadaa barnaamijyadii ku saabsanaa qaabka ugu fudud ee ugu fiican ee ugu sahlan ee aad ku diyaarin karto imtixaanka iyadoon waqti badan uusan kaa lumin. Qeybtan waa qeybtii labaad oo ku saabsan barnaamijyada iyo mawduucaas. Qeybtii koowaad waxaan kaga soo hadalnay inta aadan diyaarin maadada oo aadan diyaarin casharka dhowr arrimood ama 3 arrimood oo ay fiican tahay inaad samayso. 3da arrimood aan soo tilmaanay qeybtii hore waxay ka qayb qaadanaysaa inaad diyaariso qaab yar oo fudud oo sahlan oo waqti badan aan kaa lumin inaad ku diyaariso imtixaankaagii. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa haddaba oo qeybteena labaad ku saabsan tahay nasaaix iyo talooyin aan kula talinayno uguna nasteexaynayno qof kasta oo gelaya imtixaan darajadu doono marka ha noqdo arday jaamacadeed, arday iskuul, dugsi sare, maxad sare iyo mid hooseba, iyo dhammaan xitaa ardayda galaysa imtixaanaadka ka sareeya jaamacadaha sida masterka iyo wixii kasii sareeyaba. Nasaaixdan iyo talooyinkan waa nasaaix iyo talooyin ay bixiyeen dhammaan cid kasta oo tala siinaysa ama tala bixinaysa qof kasta oo imtixaan gelaya. Waa talooyin maqaalo laga qoray, waa talooyin lagu soo bandhigay dhammaan baaritaanada ay jaamacaduhu sameeyaan iyo dadka aqoonta u leh diyaarinta imtixaanaadkay sameeyaan. Hadalkiyuusan ila dheeraan aanu gudbo dhumucda hadalkayga. Shayga koobaad iyo talada koobaad ee ardayga aan siinayno waxaa weeyaan soo gudbinayno ardaygu waa inuu ka dheeraada imtixaanka diyaarinaya ardada kale ee sheekada wahsiga badan, qaylada iyo kaftanka badan marka lagu jiro xaaladda imtixaanka diyaarinta. Sababtu waxay tahay ardaygan lagu leeyahay ka dheero waa ardayga sheekada badan, wahsiga badan, qaylada badan. Ardaygaas sheekadan iyo kaftankan iyo qayladan wuxuu kaaga luminayaa waqtiga. Markaasuusan waqtigu kaaga lumin aad waqtigaaga uga faa'iidaysato ka dheerow ardada noocaas oo kale ah. Talada labaad ee aan siinayno waxa weeye ardayga imtixaanka diyaarinaya waxaad samaysaa waxa loo yaqaano almuraajacatu alyawmiya. Muraajaco yawmi ah oo maalin kasta ah. Muraajacada yawmiga ee maalin kastaba ah maado kastoo ka mid ah mawaadaad dhigato waxaad siisaa ugu yaraan 20 daqiiqo. Ma xifdinaysid waa muraajaca yawmiya inaad isha mariso marka maado kastoo ka mid ah mawaadaad dhigatana waxaa siisaa ugu yaraan 20 daqiiqo ilaa 40 daqiiqo 30 daqiiqo wixii la mid ah. Nasaaixda waxaa ka mid ah aan siinayno ardada imtixaanaadka galaysa in ardadu ay xaadirto maalmaha muraajacadu ay socoto dhammaan xisaskoo dhan. 2 qodob in la iska ilaaliyo maalmaha ay socdaan muraajacadu inaad goyso oo markaad aad goyso oo meeshiiba ka maqnaatana iska ilaali, inaad dibdhac samayso aad habsaantana iska ilaali. Inaad xiisadaha oo dhan xaadirto maalmaha muraajacadu socoto faa'iidooyin bay leedahay. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinkay leedahay inaad ogaato xadidka la xadiday imtixaanka meeshuu ka bilaabanayo meeshuu ku dhammaanayo, noocyada iyo nooca as'iladu imaanayaan, inaad ardadu ay weydiiso macalinka qaababka imtixaanku imaanayo, munaaqasho la sameeyo, ardadu ay isweydaarsato. iyaduna faa'iidooyinkay leedahay bay ka mid tahay inaad xaadirto xisaska. Talada afraad aan siinayno ardada waxa weeye maalmaha imtixaanka la diyaarinayo in la sameeyo waxa loo yaqaan iqlaaqul haatif, inaad telefoonkaaga iska xidho wixii aadan uga maarmayn mooyaane inaad sidaadaba telefoonkaad xidho leanna wuu ku mashquulinayaa. hadeerna khad baa la isticmaalayo aad dadku mashquuliye markaa ayaamaha imtixaanka iyo daraasaadka ku jirto telefoonka iska xidho waxaadan uga maarmayn mooyaane. Qodobka shanaad iyo talada shanaad waxa weeye inaad samayso musaacada waxa loo yaqaano aad macalinkaaga afraadda caa'iladaada afraad ka mid ah ama qoyska ka mid ah iyo cid kastoo aad ku garanayso inay ka aqoon badan tahay ama shaygan aad diyaarinaysa kaaga aqoon badan tahay kaaga horeysay inaad wixii aad fahmi weyday ee kugu adkaada inaad weydiiso aad la kaalmaysato. Waxaa ka mid ah talooyinkan kugula talinayo. Talada 7aad waxa weeye aan kugula talinayo in aad seexato. Talada 7aad oo dhan talada 6aad weeye
inaad seexato goor hore inaad seexato. Ardadu khaladaadka sameeyaan waxaa ka mid ah habeenkii oo dhan bay imtixaan diyaarinayaan. Habeenkii in imtixaanka la diyaariyo waxaa ka fiican inaad diyaariso habeenkii qaybtiisa dambe. qaab kale aan u dhigo, habeenkii qaybtiisa hore inaad imtixaanka diyaariso waxaa ka fiican inaad imtixaanka diyaariso qaybtiisa dambe habeenka. Sababtu waxay tahay habeenka qaybtiisa hore jirku waa daalan yahay, ilaa maanta uu soo jeeday, uu soo shaqaynay, wax soo akhrinay. Marka habeenka inaad wax xifdido habeenkii ama aad wax diyaariso way culus tahay, li'anna jirku waa daalan yahay. Marka goor hore seexo, jirkaagu ha qaato hurdo kaafiya ku filan habeenada imtixaanka, jirku raaxaha dareemo. Kadibna goor hore toos adiga oo degan, oo jawigu degan yahay, oo fiican yahay, waxaad toostaa salaada subax 2 saac ama 1 saac ka hor. Kadibna weysayso, tuko cadayo, kadibna imtixaankaaga diyaari. talada toddobaad aan ugu dambaysiinaya maanta talooyinka waxaa weeye tala saara ilaahay subxaanahu wa tacaala, atawakkul cala allah. Alla tala saaro oo imtixaanka markaad diyaarinayso alle subxaanahu wa tacaala tala saaro. goor horena isku day inaad kacdo si aad u diyaariso imtixaanka salaada subax ka hor. Kadibna markaad kacday laga bilaabo ilaa intaad ka tegayso qaacadii iyo markaska imtixaanka ku galahayd, imtixaanka diyaari. kallah oo goor hore u kallah u jarmaad meesha imtixaanka ku galaysa wey. talooyinka waan sii wadi doonaa insha allah. qaybta saddexaad oo ku saabsan talooyinka ayaan u gudbi doonaa insha allah. halkaan maanta ku dayno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi